mudanayaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynayaashii hore ra'iisul wasaarihii gudoomiyaashii baarlamaanka wasiirada wakiilada dhammaan mas'uuliyiinta iyo marti sharafta marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan marka koowaad hambalyo u soo jeedinayaa labada gudoomiye ku meel gaarka ee gaalkacyo ka wada yimid ku soo dhawaada waxaa sharaf weyn ah inaan maanta idinkala soo qayb galo munaasabadan taariikhiga ah ee dhaarinta xubnaha baarlamaankii 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labada aqal kadib doorasho in muddo ah soo jiitamaysay ayna ku wareegsanaayeen runtii caqabado fara badan oo aad la socotaan mudanayaal iyo marweyn sida aad ka war haysaan waxaan xilkan ra'iisul wasaarenimo ee dalka qabtay xilli hay'adaha dastuuriga ee dalka ay ka harsanaayeen wax ka yar 5 bilood ayna jirtay hubanti la'aan iyo kala aragti duwanaansho aad u weyn oo la xiriirta hannaanka doorashada iyo sidii ay u hirgelin lahayd mas'uuliyadda ugu weyn ee xukuumaddu waxay ahayd hirgelintii doorashada aad saad ogtihiin aan juhdi badan la soo gelin sidii ay u qabsoomi lahayd intaas waxaa noo dheeraa waajibaadka kale ee saarnaa xukuumadda ee ahaa socodsiinta howlaha hortabinta u leh qaranka sida xoojinta amniga la dagaalanka argagixisada horumarinta dhaqaalaha la tacaalidda xaaladaha bini'aadanimada ee dalka ka jirtay welina ka jira hagaajinta xiriirka dibadda ee dalka iyo arrimo kale oo muhiim ah runtii ma aysan ahayn howl sahlan hase yeeshee waxaan xooggeenna isugu geynay sidii dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah daneeyayaasha ay musharaxiintu ugu horeeyaan iyo daneeyaasha kaleba u gaari lahaayeen is-afgarad ku saabsan hannaanka iyo habraacyada doorashada oo uu sal u yahay heshiiskii 17 Sebtembar 2020 si looga miro dhaliyo arrintaas waxaan socdaallo ku kala bixiyey dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan kaloo shirar wada tashi la yeeshay siyaasiyiinta kala duwan ee dalka midowga musharaxiinta qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha caalamka kadib dadaal dheer iyo wada tashiyo aan la yeelanay cid kasta oo arrintu qusayso waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala eebbe nagu guulaysiiyey in golihii wada tashiga qaranku saxiixaan heshiiskii 27 May 2021 oo lagu xadiday jadwalka iyo habraacyada doorashada xildhibaanada labada aqal heshiiskaas waxaa xigay kulamo kale oo goluhu yeelanayay si xal loo dhan yahay looga helo hadba wixii caqabad ah ee soo kordha hase yeeshee waxaa xusud mudan in aan wajahnay caqabado aad u badan oo ahaa isku dayo la doonayay in lagu joojiyo in la soo gaaro marxaladdan maanta aynu joogno waxaan waqti maal iyo maskaxba lagu bixiyey abuuristay khilaafyada siyaasadeed ee golaha wada tashiga dhexdiisa ahaa faragelin joogto ah oo guddiyada doorashada lagu hayay u adeegista hay'adaha dowladda dana siyaasadeed iyo abuurista xasarado lagu maarmi karay oo dhexdeenna ah kuwaas oo igu kallifay in aan qaato go'aamo qaraar balse dalka laga soo gudbiyey jidgooyooyin badan waxaa xusid mudan in kastoo aan maanta joogno munaasabaddii hay-addii ugu sarraysay dowladnimadeenna lagu dhaarinayay haddana uu weli jiro
harraadigii dhaqanka carqaladaynta doorashada iyada oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayo hay-adaha dowladda qaarkood iyo saamaynta shisheeyaha mudanayaal iyo marwooyin halgan iyo kacakuf dheer kadib waxaa maanta farxad ii ah inaan goobjoog u ahay dhaarintii baarlamaankii 11aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan u hambalyaynayaa dhammaan xildhibaanada qaranka oo aan rajaynayo inuu eebbe ku asturo waajibaadkooda qaran ee loo igmaday iyo in ay dhaarta magaca eebbe ay ku mareen maanta oo ramadaan bartamihiisa ah ay u gutaan sida ugu wanaagsan dalkana ka samata bixiyaan xaaladda adag ee uu ku jiro waxaa aad uga xumahay in ay xildhibaanadii ku meteli lahaa golaha shacabka gobolka Gedo aan weli la soo dooran kadib markay caqabado la hordhigay in doorashadu dhacdo weli waxaan wadnaa dadaal arrintaas ku aadan anigoo rajaynayo inaan dhowaan xal laga gaaro hadduu alla subxaanahu wa tacaala idmo xildhibaanada sharafta leh waxaan idin xasuusinayaa in aad matalaysaan shacab Soomaaliyeed oo daruuf adag la daalaadhacaya ayna isugu darsameen argagixiso iyo abaaro ba'an oo qarka u saaran in ay macluul isku beddelaan maadaama xilli roobaadkii uu daahay waxaan idin xasuusinayaa in aad xildhibaano u tihiin dawlad Soomaaliyeed oo ay hay-adaheedii ay saamayn adag ku yeesheen siyaasada aan toosnayn oo abuuray kalsooni darro bulsho oo baahsan falal argagixiso oo naxariis la'aan ah xaalado bini'aadanimo oo aad u daran xasillooni darro siyaasadeed faragelino dibadeed iyo bulsho wajahaysa duruufo dhaqaale oo aad u adag sidaa darteed waxaa idinkula dardaarmayaa xildhibaano in aad alla uga baqdaan mas-uuliyadda weyn ee idin saaran la timaadaan aragti qaran oo ka jawaabaysa duruufaha haysta dalkiinna iyo dadkiinna una doorataan hoggaan awood u leh in uu xal u helo dhammaan caqabadahaas aan kor ku soo sheegay ugu dambayn waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in heerkan la soo gaaro si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo buujiyey dulqaad gudiyada doorashooyinka sidoo kale waa u mahadcelinayaa heer federaal heer dawlad goboleed iyo guddiga xallinta khilaafaadka oo lahaa hawsha ugu badan ee hirgelinta doorashada ciidamada ammaanka Soomaaliyeed waa u mahadcelinayaa ciidamada amisoon haddana loogu yeero admis si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa ciidanka booliiska iyo taliyahooda xijaar oo runtii muujiyey dhabar adeeg sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dawlad goboleedyada dalka oo ka qaatay kaalin muhiim ah iyo dhammaan saaxiibada caalamka ee na garab istaagay waxaan rabaa halkan inaan si shakhsi ah ugu mahadceliyo raggii odayaasha ahaa ee doorashadii aqalka hoose ama golaha shacbiga noo bilaabay ee ugu horeeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii Mahdi iyo saaxiibkay Biixi oo arrintaas iyadoo raalli laga ahayn bilaabay doorashadaas waxaan doonayaa in aan halkan si gaar ah uga mahadceliyo xildhibaanada reer koonfur galbeed iyo saaxiibkay madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen oo intii aan ku soo jirnay doorashada inoo ahaa oday wax isku wada waxaana leeyahay wadaayo hadhawaaw xildhibaanada reer koonfur galbeed iyagana waxaan leeyahay la'aantiin halkan nuur ma yeelateen gudiyada doorashada heerarkooda kala duwan waxa ay sii shaqayn doonaan intii laga soo dhammaystirayo xildhibaanada aan weli la dooran kadib loo samayn doono maamuus qoran oo looga mahadcelinayo waxaan rajaynayaa in qaybaha ka haray doorashada noogu dhammaato si guul ah degdeg iyo nabad sidoo kale waxaan farayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Bayle inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabo xaqii ay lahaayeen xildhibaanada cusub mushaarkooda iyo deegaankooda iyo wixii la xiriiray waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado kaftan yar saaxiibaday xildhibaanada maanta horteeda fadhiyo waxaan leeyahay ee wejiyadeyda horteeda ka muuqdo hal sano iyo bar ka hor magaciina warqadaha la ii keenay kuma jirin laakiin maanta ilaahay wuxuu qadaray inuu magaciina halkan ku soo daro
marka waxaan idin leeyahay nasiib aad leedihiin ilaahay u mahad celiya waxaan leeyahay khayr ayaa ku jiro in qayladii idinka yeertay aad ku hesheen kursiga maanta ku fadhidaan waxaan kaloo rabaa in aan xuso wixii hadda ka dambeeyo warka wuxuu noqonayaa xildhibaanada ii geeya xildhibaanadan waxaan leeyahay dhibkii idinka soo gaaray doorashada dhuunta ha ku dhegina dadka musharaxiinta ha u fududeeya howlahooda hambaliyo mar kale rabadaan mubaarak soomaaliya ha noolaato waxaan idin leeyahay soo dhowaada